بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي waxaan ka salaamayaa bahda SNTV iyo mas'uul madaxdeeda. Waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Prime Ministerka Khayre, iyo golaha wasiirada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed maadaama aan fadhiyo SNTV. Salaan kadib waxaan meeshaan u soo fariisanay wax kale ma aha inaan ka hadalno arrin oo dhacday mar dhaweyd dhacday oo ay gabagabadeedina dhamaystirkeedina ku soo dhamaystirmay in hanti maqan ay maanta dawladda Soomaaliya gacanteeda inoogu jirto. Haddaan dib u laabto waxaa dhacday degmada Ceel Cali inay ka dhacday dhibaato badan oo ay geysteen nabadiidka. dhibaatadaas oo awalba aan hore u qabnay ha noqoto xoolo ha noqoto ilmo yar yar oo nagala ciidameeyo, laakiin biishubkeedii waxay noqotay hadban in macdantii dhulka lagala baxo. macdantii inta la baartay lala baxay wiilasheenii la dilay, qaarkood dhaawac ay yihiin, dhibaato badanna loo geystay. taas macnaheedu wuxuu noqday xoolihii la iska qaadanayay, ciyaalkii oo la ciidameeyey, xoolihii oo lala tagay oo sakaa laga bixinaa la leeyahay, odayaashii oo la yiri casharaha la diin dhigayaa, macdantii oo dhulka laga soo saartay, kii hadlayna la dilay. macdantii baaritaanay mar hore u qaadeen, waa la soo celiyey. waxay noqotay in baawurro la keensado bahal lagu qaado dhulka looga soo saaro. siday u soo socotay maanta waxaa ilaahay ku mahadinaa dawladdeena sharafteeda iyo karaamadeeda aan ugu mahad celinayaa in booliiska gacantooda ay ku qabteen, maantana uu yaallo meel nabada ay dawladda mas-uuliyaddeeda ay qaaday, isla markaasna xisaabtanka dhinaceedu uu jiro. laakiin aniga gaar ahaan haddaan magacayga sii sheego, waxaan nahay xildhibaan Maryan Axmed Haaruun oo ka soo jeeda deegaanka Ceel Cali, deegaan doorashadeedana ay tahay. maanta haddii hantidii iyo resourcigii dhulka ku jiray la soo saaray, waxaan aaminsanahay waqtigii doorashadana ay soo dhowdahay, meeshii aan tegi lahaana ay caqabado badan ay saarnaayeen, dawladda in hantidii la keenayna aan kala xisaabtanno. caqabadaas taaganna sidii aan uga baxay lahayn annagoo wada jir ah oo anigoo deegaan ka soo jeeday, wiilashayda ay diyaar u yihiin inay dagaalamaan, inay dalkooda difaacdaan, in gabdhahooda ciladaha lagu haayo oo nabadiidka uu ku haayo ay ka dhigtaan, ilmaha yaryarka ah oo malirtiriyeynaya ay ka joojiyaan, resourciga dhulkooda lagala soo baxaayay ay ka qabsadaan. taasna gacanteeda waxay ku jirtaa maanta marqaati waxaa ka ah hantidan dhulka magaalada noo taalla. hantidan mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh iyadoon meel kaleeto oo Hirshabelle aan ahayn, iyadoo aysan ahayn federaal, degmaa laga soo qaada, dadaa lagu baabi'iyey, crimeaa lagu sameeyey. tan waa mid crime ku saabsan. for example, geelaa lasoo qaaday, geel booli oo xamar lagu qabtay, qabashadeeda yaa lahaanayo waxaa iskale, waxaa lagu qabanaya horta qofkii booliga ahaay oo keenay, xisaabtankana waxaa iskale meeshii laga soo qaaday. aniga waxaan leeyahay xisaabtanka dadkii iska lahaa kolley dawladdan ka wada xisaabtami doonaa, iyadoo garab ay ugu siinayaan guddoomiyaha Hirshabelle oo ka soo jeeda qadiyadayda, Jeeso oo ka soo jeeda isagana sidoo kaleeto xildhibaankayga, annagoo u wada gurmanayna haddana gaar ahaan dhibkii loo geystay Ceel Cali oo aniga aan xildhibaan ku ah. waa mahadsantihiin. waxaan dawladda ka codsanayaa oo baaq mar labaad aan u celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Prime Ministerkayga Khayre iyo golihii wasiirada iyadana mas-uuliyadda nala yeelatay in arrintan ay tahay mid culus, anigana cabashada ay ugu soo badatay, anigana maanta cabashada aan u gudbinayo, aan SNTV ugu gudbinayo madaxday iga sarreysay oo madaxday dalka. waana mahadsantihiin.